waxaan rabaa arrin qodobka su'aasha aad weydiisay horta nimankan al-shabaab iyo khawaarijta maanta dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed cadawga ku ah waxaa keenay burburka iyo inay ayagu isqabsadaan iyo qayb ka mid ah inay sixiraan waxaa sabab u ah culayska soo wajahay oo ka soo wajahay dawladda federaalka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo meel ka soo wajahaysta marka ma xamili karaan culaysyada waaweyn ee ku imaanaya ma xamili karaan marka waxaa dhacaysa duqeymaha dhacaya weeraro aysan filayn baa dhacaya maadaama dadku ay maanta isku xiran yihiin oo sidoo hore bahasho ahayn oo dawladda Soomaaliya ay maanta mataqaanay meel ka soo wada jeeday iyo shacabkeedaba marka culeysyada soo wajahaya waxaa imaanaya shaki gudaha ah wariyaa xogta bixinaya intee culayskan nooga imaanaya waxaan maanan arki jirin waxyaabahaas isweydiinayaan waxa dhacaysa marka inay sixiraan inay isdilaan inay kala tagaan abnigana marka laga hadlaayo sida dawladdu ayay laftirkooda gudaha waxay u dhisayeen sida dawladdu kale qaybahooda abniga waa kala shaki weyn baa imaanaya sidaas darteed marka taasa sabab u ah inay mataqaana maanta gudahooda isku soo noqdaan dhaqaalihii baa ka burburay dadkii baa ka burburay oo ka dhamaaday saraakiil haday yihiin mataqaana saraakiil badan baa ka dhimatay anagu marka waxaan leenahay intaas in ka badan baan ka sugaynaa oo jab ah shabaab maanta marka waxaan leenahay sababtaas keentay su'aashaad weydiisay hadaan ka jawaabo si simple ah sababtaas keentay burburka al-shabaab iyo mataqaana inuu isxiro waana burburka soo wajahay weeyaan wallahi way u badan tahay haddaba way soo dhiibaan aad bay soo dhiibaan nimanka soo diray baanan hadda wali soo dhiibin ayagana waa la filayaa mar hadii dhaqaalihii laga xayiro mar hadii mataqaana dadkii laga laynayo intaas waxaan isleeyahay waa sifooyin ay soo dhiibi karaan qorshe ka weyn baana dawladda u dejisan federaalka Soomaaliya iyo isteediyadaba ilaahay idinkiis shacabkana wuu ku soo jeestay al-shabaab mar hadii shacabku kugu soo jeesto waxa weeye kabtay bilatay meel igeeba ka dhacaysa marka waxaan leeyahay ba iyo hoog baa u sugnaaday insha Allah ta'ala waana laga adkaan doonaa burburkaasna wali waa bilow insha Allah meel waxaad arki doontaan shabaab taariikhdu gali doona wax waa soo maray masiibo dalka waa soo martay iyadoo historiga iyo taariikhda ku jirta arki doontaan bari baa la sheegi jiray oo ku sheekaysano ayaa dhici doonta biidhnilaahi ta'ala ilaahay idinkii istaakulooyin badan oo loo dhigay shabaabna waa jiraan marba inaan hadda ka hor dhaco sabab abni mataqaana abnigu wixiisa waa daasoo yihiin baahin banaanka la soo dhigo intaan ogahay badan insha Allah farxad shacabka bigooda ku soo dhici doonta jiraysa insha Allah waxaan ugu baaqayaa ilaahay baa wax dila nafta marbay go'aysa naf kastana inay dhimanayso waa hubaal iyo yaqiin waalidiintii dhalay ayaa dhintay ambiyadii iyo saxaabadii baa dhintay waa la dhimanaya halna dadku inay ogaadaan waxaan dadku u baaqayaa kamida inay dadka naftooda ku kalsoonaadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kalsoonaadaan oo ay qawi noqdaan oo naftooda adkeeya maxaa la yiraahdaa sharaftooda iyo karaamadooda ay ku adkaadaan qofna qof ma dili karo ninkii ilaahay uu soo mataqaanay doono baa dhimanaya markii lagu soo doonana taada timid waana ku qanacsanaanaysaa oo because ma aha wax oo magal lagaaga yahay ma aha naftu waa amaano ilaahay baa nagu amaanaystay maalintu soo doonana uu naga qaadanaya waxaan marka ugu baaqayaa rag iyo haweenba in meel looga soo jeesto waxaan ilmahaaga dhaafayn maalkaaga dhaafayn erdigaaga dhaafayn sharaftaada dhaafayn karaamadaada aan dhaafayn diintii ku beeshay ka been abuuranaya waxa weeye inaad guriga ku qarsato oo aad guriga ku qarsato munaasabkuguma aha diiniyan iyo maadiyan wax ku faraya midna jiraan islaamnimadaadana qatar ku galaysa sidaas darteed waxaan ummadda ugu baaqayaa meel kasta joogaan min raas casayr iyo raskamboni in loo istaaga arintaas nafta alla gooya anu taasan dadka ugu baaqaya hadba ma soo dhawahay shirka iyo shaqaalihiisa islaamka salaamaya magacaygu Cabdullah Shaafici Cabdullah wayaasha bulshada Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland
arrintaas dee markii dhab looga hadlo si diiniya looga hadlo ama si dastuuriya looga hadlo dastuurkeena Soomaaliya horta markii quraanka laga tago sharciga ugu sareeya dalka sidoo kale waxaa jira xeerar iyo nidaamyo dowladda dejiso oo hawsha lagu wado fulintu isticmaasho baarlamaanka la mariyo siyaalo badan loo sharciyeeyo marka hore sharciyan in xoolahaaga hantidaada iyo xoolahaaga iyo maskaxdaada qof wax lagu yeelo muslim waa xaraam إلهي سبحانه وتعالى وحي اللي يسكت كاشة وناك لما تجي وطول يسكت كاشة تعاون على البر والتقوى ركتير مركب كان صوت بابا إن كان عصتض يقشوا إلا عكت والله يكون بحيان الجبال يا عبسية قفك بالله هو لا خير مكبر إن إلهي سبحانه وتعالى عكت أنا إن قطو تدك الموليني أنا واركين الدبيلية اللي يقولين يعني لم يدين طبعا شباب runtii dee baaqu siyaalo badan baa loo baaqaa marka hore afkayga iyo kan bulshada reerkan oo ku hadlay waxaan ugu baaqayaa ganacsatada inay qayb ka noqdaan wanaagga dalka ka jira dalka oo cadowga laga qabto dalka oo nabad noqda bulshada Soomaaliyeed oo heshiisa lacagahooda aan loo isticmaalin dhibaatada inay shidaal u noqdaan amarada dawladda oo lagu jiro loo marin maalin walba wiilal bay naga dhintay حتى دينا كلام مركز كفير الشباب هو ويلشين ويلشين الخلدي واي وديمان أيام هو إنه وكوي يستعمل لي وبركة قوانين وديمان أيام مركز إلهي تركع عشتان بالأركب ماشى تاجنتين لما داوي بالعقوق من بعد الجاجين وكله تي داوعي ودولان منه عرفتين قد عكس صديق وحركي مركز كان عصده وحنقول باقي لا كل طبعا ما كان عصده الصومالي الجاهلين الدين اللي هواي لكن ماشى عبسده كسر كشر ما كلام يعني عبسده marka hore ilaahay meeshu ku dilay bas ku dhimanaysa saacadu ku dilay bana ku dilay sina lagu dhaafna oo dhimanaysa laakiin ha ku dhiman wada khaldan adoo garanay wadada khaldan tahay cadaabtuna waxa ugu xun midda aad dambiga aad gasho adigoo garanay culimada inay wacdinaysa kutubta taqaana ka warrama hadan Sheekh Shibli iyo Sheekh Umal iyo Mustafa Sheekh Ismaaciil iyo hadayna carruurtooda reerahooda wacdiyay diinteeda u sheegay salaad laakiin naga noo sheegan maxay noqonaysaa ganacsatada waxay u baahan tahay waa ruuxii wadanka dawladda Soomaaliya lacag ma haysato fakti korontada iyo biyaha bangiyada adeegyada dhammaan dadweynaha iska shacabka iska hadda marka aad leedahay Amal Bank Habshiil Bank guud aad leedahay shirkadaha waaweyn ee korontada bixiya leedahay lacagtaada iyo dadka lagu leeyahay kor dawal lagu cadaabaya xoolahaaga cilay ku dhamaanay ilaahay ku fuqinaya sababtoo wadada wad ka leexatay ma jidin laga rabay intaas lagu baaqaya in khawaarijtu iskhilaafaan waxay saldhigu tahay cadaadis badan oo dhanka dawladda ka imaaday dagaal xoog ah oo dhinacyo badan ah oo shacabkii iyo dawladdii oo midaysan iyo saaxiibada beesha caalamka ay ku qaadeen waxa kale saldhigu tahay in beentii iyo dhiiggii muslimka oo la banaysanayay maalkii dadka oo la dhacayay cuddigii dadka muslimka oo Soomaaliyeed oo lagu xadgudbay dhammaan waxaasoo dhan oo isbiirsaday cawaaqib xumadii ka dhalatay ayaa sabab u ah in khawaarijtu iskhilaafaan isxiraan isdilaan waxaana isleeyahay waxa la joogaa markii ay wadankan ka dabargoori lahaayeen waxaa rajaynayaa in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada saaxiibada beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhammaan is garabsaday in la joogo waqtigii nimankan la dabar jari lahaa wadanka laga sifaan lahaa wadanka laga dhigay wadan amni wadan qofka Soomaaliya ku noolaan kara asagoo cirdi leh sharaf leh dhiigiisa maalkiisa iyo cirdigiisaba uu ku nabadgeli karo waxaa farka maqadna waa in dawladdu si laga jibirtaa saaxiibada beesha caalamka waxaa ku bogaadinaya garabka ay siiyeen ummadda Soomaaliyeed sidii dib marka la xorriyadooda u heli lahaayeen sidii khawaarijtan oo dhibaatooyin baan ku haya dhulka wax soo saarka oo dadkii wax soo saaran lahaa ee meelihii qaniga deganaa baad iyo cabsigelin iyo agajugleen ku haya sidii looga sifayn lahaa astaamaha hadda ka muuqda nimankan oo ah in ayagii hadda iskhilaafayaan qaarkood isxirayaan isdilayaan waxay caddeen dhab u tahay in dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay cadaadiskii dhaqaale iyo midkii ficilka ay shacabka iyo dawladda Soomaaliya iyo caalamka midaysan ay ku qaadeen waxaana rajaynayaa in dawladdu ay shuruucdii baas marisay oo ay ugu horeeyaan kuwa xanibaadda dhaqaalaha iyo kuwa maaliyadda iyo kuwii dadka ka xanibay meel kasta ay awood ka heli karaan in la sii loo jibaaro in xoogga la saaro in lagu soo gabagabo waqti kooban si wadankan uu helo wax soo saar dib u dhis iyo horumar dhaqaale waxaana rajaynayaa
teeram kan ma ku dhamaado madaxweyne xasan in lagu gudbo la hilmaamo dhibaatooyinkii khawaarijta ayna noqdaan taariikh madow oo wadanka iyo ummadda Soomaaliyeed ay soo martay waxaana ku bogaadinayaa inaana laga moraal jabin in dadka Soomaaliyeed dawladnimo wax wanaagsan ugu noqon karaa cizi sharaf qofku wuxuu ku heli karaa markuu dawlad leeyahay wadan amniga leeyahay shaqaysto wax soo saaro ummadda Soomaaliyeed dhibaato ay ka soo daaleen sidoo kale waxay ka soo daaleen in beesha caalamka loo bariyo oo maalin kasta gargaar loo raadiyo waxaa rabaa nimankan in laga sifeeyo wadanka warshadihii la sameeyo beerihii la tabco xoolihii la tabco kalluunkii la tabco biyo xireenna la sameeyo wax soo saar la sameeyo la gaaro in ummaddu hesho food security inaana gaajay macaluul dambe ummadda Soomaaliyeed aysan ka fakerin xoogga iyo muruqa iyo maskaxda ummadda Soomaaliyeed la mideeyo dawladnimo lagu mideeyo diinta oo fikrad sax laga qaato lagu mideeyo wacyigelin sax lagu mideeyo anaka isku duwan waxaan rajaynaynaa inaan hagardaamooyinkii dhibaatooyinkii iyo urkutaalooyinkii xumaa ay khawaarijtu geysteen 12 sano ee la soo dhaafay in laga bogsado ummadda Soomaaliyeed horumar gaarto madaxweynaha iyo mar hore uu sheegay qofkiisa soo dhiiba ee dadkiisa dalkiisa u soo noqda ee ka toobad kaas khawaarijta dawladdu si fiican u macaamili doonto waa waqti furan waa saxaabada caqli leeyihiin oo ay soo noqon karaan dawladdu iyo dadkooda soo dhaweynayaan haddii ay rabaan bahalnimada iyo dadcunimada iyo shaqitaanka dhiigga muslimka inay sii caayistaan dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda iyo dadkeedu gacan bir ah ay ku qaban doonaan meel kasta iyo god kasta ay tagaan way ugu daba tagi doonaan ummadda Soomaaliyeedna ma aha ummad la gumaysan karo cirdigooda iyo sharafkooda lagu ciyaari karo waa soo jeesteen waqtigii bahalnimada iyo cabsigelintu waa dhamaatay waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed iyo dawladoodu gacanta qabsadaan meelna loo soo wada jeesto sharka khawaarijta